Libaaxu waa boqorka keenta sida aan wada ognahay. Inkastoo xayawaankan uusan ku noolayn keymaha oo uu ku nool yahay dhulka daaqsinta ah, waa bahal aad u shida badan aadna looga cabsado. Waxa uu arkay kolkuu gaajaysan yahay ee adag tahay in uu dhaafo. Waa bahal markii uu ka soo horbaxo ee uu kugu soo wajahan yahay cabsi rabbaani ah ee ku qaadanayso. Libaax ayaa koox u nool una ugaarsada bisadaha waaweyn. Libaaxa kaliya ayaa sidaas sameeya, taasoo u sahashay inay ugaarsadaan duurjoogta waaweyn sida gariga oo kale. Saynisyahanadu waxa ay kaloo qabaan in bisadaha oo ka maskax badan yahay, iyagoo tijaabo sameeyay sanduuq hilibku dhex jiro oo aan furmeynin ilaa xirig la jiido ayaa waxaa la soo hordhigay xayawaano fara badan. Libaaxa ayaa waqti yar ay ku qaadatay sida loo furo bukoskaas, halka shabeelka iyo harimacadka ay furi waayeen ama waqti dheeri ay ku qaadatay inay furaan. Libaaxu waa midka labaad ee ugu weyn qoyska bisada, waxaa ka horeeya oo keliya shabeelka. Sidaan hore idinku sheegay, libaaxyadu waxay u nool yihiin koox oo waxaa lagu magacaabaa raxan. Raxan kasta waxay ka kooban tahay 15 libaax, mararka qaar waxay gaaraan 30. qaabab kala duwan ayay u ugaarsadaan libaaxyadu, sida jidgoon ama in la hareereeyo noolaha la ugaarsanayo. Goolaha tabarta daran iyo dhasha waxay ka weerar tagaan dhexda, halka kuwa halista ah ay ka weerar tagaan hareeraha. Libaaxu inta badan wuxuu ugaarsadaa sida lokisiga, dameer farowga, biciidka, garanuugta, coosha iyo deerada. Haddaan u soo jileecno dhanka xawaaraha, libaaxu wuxuu halkii saac jari karaa masaafo dhan 80 kiiloomitir. Tirada ugu badan ee libaaxu waxaa laga helaa qaaradda Afrika, wadamada ka hooseeya Saxaraha, waxaana ku nool yahay dhul cooseedka iyo dhulka bannaan. Libaaxu wuxuu inta badan noolaadaa 13 ilaa 16 sano.